السلام عليكم walaalkiin Axmed waaye oo mar labaad video nii soo duubay waxaan leeyahay aniga waxaan walaalahay rabaa inaan u sharaxo waxyaalo badan siyaasadda caalamkan ka socota beenta dadka la isu sheegayo dadka la isku diraayo dadka la dhacaayo ma fahanti waxyaalaha oo xaqdarada ka socota yani beenta ka socota laakiin videoga hadda aniga aan u duubayo waxay tahay programkan la dhaho oo America laga soo siiday ama Canada miya ma aqaan Canada laga soo siiday umaleyna Toronto ka hadla saddex gabdho oo programka duubta oo sheeko la dhaho sheeko baa la dhahaa fiirsada marka ta koobaad waxay tahay saddexdan gabdhood abu aragteen ani maleynaya waa umaleynaya waxaa waaye fiiriya saddexda gabdhaba wiil Soomaali ma la socdaan fiiriya qoftaan maxaa la dhahaa oo caloosha weyn oo camanka waaweyn oo nacasta ah taas waaba Soomaali naceeb taas fiiriya waxaa waaye dadka weak people waa fiiriya alxamdulillah inay jareer iyo ay qabaan oo dad madmadow inay qabaan oo aan Soomaali ahayn waa fiican tahay because waxaas dhan way naga tagayeen moogtahay waa wax noo fiican laakiin wax walba waxaa kasii daran moogtahay hadii dumarkaaga gabdhaha Soomaalida oo niman oo noocaas oo kale nimanka ajnabiga u tagtaga hadhow weligood ay sameynayeen hadda gabadhan buuran documentary-ga filimka nimanka kale u tagtagta iyadoo buuran ee wiilasha Soomaalida ku dulcaayay television programka beesaas iyadoo ay tahay ee weligeed wiil Soomaali la tag u tagin ee la sheekaysan yasitaan way yasayaan fiiri dumarka cadaanka ee sheekadaas ku dhacday fiiri naagihii madowga hadda ku dhacday naagihii madowga YouTube gala fiirsada America ninka cadaanka wuxuu rabaa inuu ka badiyo ninka madowga ah marka muxuu sameynayaa naagta madowga ah uu lacagta u badinaya shaqo siinaya section 8 uu siinaya ilmaheeda iyo nimankeeda ay burinaysa way dayacinayaan fiiriya way culture-kooda ay nacayaan fiiri hadda gabarta Soomaalida waxay u cararaysaa nimanka ajnabiga noogula dagaalamayaan hala dhaafo samba waxa way kaliya dhaqankeedii ka tagta fiiri long time ago she left her own culture so she's actually lost she's looking for something but she cannot blame the people who tricked her oo been u sheegeen oo culture-kooda ka buriyeen she cannot blame them lacagta iyagaas sii fiiri she's still living their life she want to be like them laakiin markaas waxay keenaysaa inay culture-kooda ka soo horjeedayaan hadii runta la sheego nimankii gabdhihii kuwa Yurub jooga dhan naagaha Yurub jooga Soomaali xataa ma ka hadlooy kaliya naagaha madow cadaan cid walba kuwa Yurub ku koreen ku dhaqmeen culture-kan wada wato waa laga wada cararooya America hadda fiirsada nimankii cadaanka Amerikaanka waxay aadayaan China Thailand maxay ka doonayaan gabdho oo culture-ka nimanka muslimiinta leh culture-ka dhaqanka kale leh culture-ka dumarka nimankooda jacayl wax korina ilmahooda koriya la jooga inay dhibaato walba nooc walba ay ku timaado hadee faqiirnimo noqoto hadee noqoto wax walba because eventually waxa lagu dhahayaa hadaa isguursano soo faqiirnimo wax walba isguursanayna laakiin taas aan ka baxno gabdhaha Soomaalida waxay ku sii dareen hadda ta kale ag fadhida waa aragteen oo caatada oo wajiga xun leh sun socota waay fiiri hip hop ay normalize anagu madowga maniin ciyaalka Toronto anaga Soomaalida culture Kenya warabna wili 99% of us still in their following their culture some 1% oo mesh jirjir kugu heleen now you want to play on us na gabdhahan waa waxaan wasaqda aniga mid kale waxa ka sii daran gabar Soomaali oo xiniya leh oo wiilash naagahan runta u sheegays ma jirtaba hadhow xartan wiilash inay la caaytamaan gabdhaha hadhow waxa leedii oo gabdhii baa la caayaya na idinka dhibaato ma haysataa u maleynaya maanta ya anaga laakiin mid aan sheegaya anaga waa daalnay gabdhahan inay nacaayaan nin walba noog dulfaaniyaan iyadoo awalba waxay og socotaan ogeyn anaga waa ognahay gabdhaha nimanka ajnabi guursado hooyooyinka nimanka guursadaan isticmaala iyada dhan waa laga wadanaya culture-keeda waxay wax taraysa ma laha ilmihii cadaan nooc kale noqonaya aan dadooda wax ku taraysa ma leh laakiin ma fahansan naagaan waxay u maleeyaan nimankan ka xanaajinayna nimanka Soomaalida anaga Soomaaliya u soconaya moogta anagoo lacagteena wadan wax walba guryaheena iyo fiir meeshaan deganahay nolosheena fiiri anagoo taajir noqonayna Soomaali afaran guursanayna gabdho walaaleena oo sharaf leh oo ka fiican adiga baqti fooq baqti nimankii cadaanka been madax ugu ciyaareen kunta waxay u dagaalamaysaa dadka cadaanka waxay ka tageen dumarka cadaanka hadda xijaab xirnay muslimay rabaan inay noqdo tan fiiri caloosha weyn la sheeko programkeed caloosheeda say u weyntaa fiirsada nacalla abaha ku yaali hooyada was